bandhig caalami ah oo ku saabsan fursadaha shirkadaha ka shaqeeya dhoofka iyo soo dejinta ayaa waxaa lagu qabanayaa Shanghai. wufuudda iyagu ka soo qaybgeli doona shirkaas ayaa waxa ay yihiin hogaamiyayaal madax sarsare wasiiro iyo waliba shirkado gaar loo leeyahay. bandhigga ayaa waxaa loo qorsheeyay inuu qabsoomo 5 ilaa 10 bishan fooda inagu soo hayso ee November, waxaana uu ka dhacayaa xarunta bandhigga qaran ee Shanghai. ninka isagu lagu magacaabo Thomas Osianiski waa madaxa shirkadda baabuurta soo saarta ee Audi China, waxaana mar wax laga weydiiyay hadaladiisii ka mid ahaa we are preparing for this new waxaan u maleynayaa inaanu si weyn ugu diyaar garownay bandhiggan cusub. waxaanu doonaynaa in aanu si buuxda u soo bandhigno baabuurtayada casriga ah ee aadka loo xiiseeyo. most exciting wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee waddanka Koonfur Afrika Mr. Rob Davis ayaa sheegay inay iyaguna si weyn isu diyaariyeen. wasiirka oo hogaaminaya wafdi ka socda waddankaasi Koonfur Afrika ayaa diiradda saaraya kor u qaadidda waxyaabaha furaha u ah koboca dhaqaalaha waddanka Koonfur Afrika, waxaana uu yidhi we'll be focusing in the China International Import Expo on agriculture. waxaanu diiradda saari doonaa waxyaabaha shirkadda China International Import and Export ay ka shaqeyso, khaas ahaan waxa laga soo saaro beeraha ee la dhoofiyo iyo waliba waxyaabaha kale ee qiimaha leh. waxaanu rajaynaynaa in aanu sidaa yeelno ilaa inta uu bandhiggani socdo. wasiirka ganacsiga ee waddankaasi Indonesia ayaa isna dhinaciisa hadlay, laakiin ku-xigeenka agaasimaha rugta ganacsiga ee waddanka Indonesia ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa qayb ka ahaanshaha shirkaddan. fursadaha noocan oo kale ah waa kuwo aad noogu muhiima. waddanka Shiinuhu waxa uu sameynayaa dhoofintii iyo soo waaridintii ugu horreysay ee run ahaantii nooceeda ah, taasoo uu u sameynayo kuwa u dhoofiya waddamada kale ee doonaya inay Shiinaha wax u dhoofiyaan. waanuna doonaynaa inaanu fursadda ka faa'iidaysano. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.